waxa kala hadlaya qoliyaal luqadda Ingiriiska dhanka fudaydka marka laga hadlayo waxa fudud kaliya ka yaqaan easy bari doona 6 qaab oo kala aad u oran karto waxaas uu fudud yahay waana jumlada laga adeegsado dhanka filmiska ama real life-ka markaas su'aalaha la weydiiyay ay kow ka tahay haddana mid ka aqaano dan maxaan uga baahanahay inta kale waxaad uga baahan tahay haddii easy qaababkeedan kale lagu yiraahdo oo aad garan weyda ka waran dhiga taagtaagto taasaan mushkilad marka taasaan kala fogaanaya Ingiriiska balaari 6 qaab jumlada horeysa phrase go horeyn isleeyina maadaama qaarkood idioms yihiin oo sarbeeb yihiin is a piece of cake waa wax aad u fudud sida cake oo kala It's a piece of cake. Yeah, it's a piece of cake. Number 2 is a cinch waa wax aad tiga It's a cinch. It's a breeze waa neecaw oo kale waxaan aad u fudud marka neecawda ayaa loo yaqaanaa layda neecawda layda qabow النعاود اللي له هي الله يقنا phrase number 4 I can do it cid kasta oo sameyn karta waxaan marka sameynayso jumlada soo gelintay jeesna sentid waxba ma hatan oo ka wada qofkii yani waa sameyn karaa xaad oo tan badani u adeegsado base Allah man squares idan loo adeegsado waxa fudud easy peasy lemon squeezy dadka soo saaxiibkaaga ama mid saaxiibadaaya oo easy u soo orday mar walba u share garee oo intan oo qaab isticmaal midkood waxaan kula talinay midkiin bayno laba u kala baxo adeegsado that's it gowgooda waxaan kiisi tagayaa inaad jumlada geliya marka qaybta comment section ka noogu reeb ama buugaaga gasho follow for more